degmada Wadajir baan ka imid maanta maalinteedii macnihii axadda maanta axaddeedii ayaan isbitaalkan imid markaan imaanayay si dhuumashaan reerkii uga soo tegay sababtuna waxay ahayd fikradda aan ka haysanay isbitaal Martiini oo ah meel karantiil oo qofka inta lagu tuuro wax ka daba imaanaya aysan jirin dayac iyo daryeel xumo loogu dhimanayo ayaan ka aaminsanay inuu nala ka dhaadhiciyay waan soo dhuuntay ilaahay baa mahad iskale jaranjaradii waa fuuli waay markiiba dhalinyaro ay qabatay garbaha waa layla cararay waxaa la geeyey meesha emergency-ga markiiba oxygen baa laygu xiray waa la iseexiyey wax yar ka bacdi xaakaa layga qaaday ka bacdi dhiig baa layga qaaday ka bacdina raajadii baa layga qaaday waa la gudbiyey waxaa la ii gudbiyey meesha temporary-ga howlka weyn gurmad aan caadi ahayn oo aan kala go' lahayn oo shaqaalihii maamulkii dhakhaatiirtii looda kor taagan yahay waan kala kulmay ilaahay baa mahad iska leh waxay ahayd maalintaas axad bay ahayd axad iyo isniin iyo talaado waxaan jiifay meesha iyadaa arbacadii baa layga soo gudbiyey waxaa la ii soo gudbiyey howlka weyn maalintaa arbacada ah habeenkii 5 saac baa qandhadii iyo naqaskii igu xirmayey iyo quficii intiiba iga istaageen intiiba markaas iga istaageen caafimaad aan la dareemi karin baa la kulmay caafimaad aan la dareemi karin baa la kulmay wixii la sheegayay Soomaalidu waxay tiraahdaa been fakatay runi ma gaadho wixii la sheegayay been bay ahaayeen cuntada taala hoteelada waaweyn cuntadoodii baa taala quraacda qadada cashada waa hoteelada waaweyn cuntadoodii nin weyn baana iskama hadlaya ninkii doonaya wuu iman karaa sidaa darteed dadka silcaya ee saxariiraya ee typhoid baa haya malaria ay haysa Martiini lama tagi karo dadka lahow kaalaya imaada Martiini gurmad baad la kulmaysaan caafimaad baad helaysaan yacni garab qabashaad helaysaan waxaan la soo koobi karin waad kala kulmaysaan ilaahay baa mahad iska leh waa dawoobay waan caafimaaday alxamdulilaahi rabbil caalamiin kana imid degmada afgooy ilaaga keen markaan meeshaan imaanayay ogaal maanan lahayn alxamdulillaah dadaal badanaan loo qabtay daawo daryeel xag caafimaad xag nafaqo alxamdulillaah maanta waa aniga hadlaya maalintaan imaanayna ogaal ma lahayn ilaahay mahadiis alxamdulillaah wax qabad badanaan loo qabtay marka horena ma aaminsaneen banaanka markaan ka joognay in wax qabadkaan aan helayn alxamdulillaah ilaah noo nimceeyey waxbaana loo qabtay dadka banaanka jiran waxaan u sheegaynaa daryeel xumo inaan u dhiman ee soo gaaraan goobta caafimaadka ambalaas aan wacday gurigay ugu timid waan soo qaaday isbitaal Martiini ay keentay alxamdulillaah waxaan ka helay daryeel daawo raashin cid aan dhakhtar ahayn aan u baahdaba ma jirto ehelaan u baahnayn cid kale aan u baahnayn dhakhtarkii aniga cid noo dhexaysa male dhakhaatiir macnaha aan seexan habeen iyo maalin ayaan la kulmay alxamdulillaah rabbil caalamiin maantana waxaan malaa 10 bishii meeta maantana waxaa la yidhi fasaxa tahay guriga way aadi kartaa dadka guriga ku jiran xaafadaha jiifo cudurkaan u hayo cudurkaan waxba ma aha cudurna ma aha ilaaha noo yasiray 4 maalin 5 maalin waa wax daawo haddii ay qaadato siina buu ka haraayo marka waxaan kula dardaarma inay goobaha caafimaadka iska soo xaadiriyaan intuu ilaahay halka noqdo fikrad qaldan yaysan ka aaminin dhakhtar 24 saac aan kala go' lahayn aad jooga isbitaalka raashinayaan cid aa u baahnaysan ma jirto halkan waxaan imiday bishii dhammaatay 10 Abriil ayaan imiday iyadoo aad qandha ii hayso
si wanaagsan baa lay qabtay dhaqaatiir iyo kalkaalayaalba qandhadii wixii oon markaas ku habboonay oo laysii karayaa laysiiyey qandhadii waa ka roonaaday 24 saac ka bacdi si fiican baan u noqday haddana testi baa layga qaaday testigii positive uu keenay qolka waxa la wareejiyay kan wuxuu ahaa midka oo karantiilka waxa la wareejiyay midka kaleeto oo dadka jiifka oo positive ka la wareejiyay sidii baa dadaal leeyla garab taagnay oo loo kulligeena loo garab taagnay dhaqaatiirta iyo kalkaalayaashu waqtigii waxa la gaaray haddana layga qaadi lahaa testigii labaad positive aan keenay haddana waa sii joogay dadaalkii sidii ku sii socday markii dambe dhaqaatiirtu talada ii soo jeediyeen waxay noqotay inaan anigu kaliya iskarantiilo dibadeedna aan soo noqdo testiga saddexaad maanta ayaad la kulanteen oo testigii saddexaad ah oo aan u soo noqday hadda waa taliga qaaday aad arkaydeen natiijadana allahu yaclam waa sugaynaa waxaa laga soo waray haanta dheeroo dayneeda laga soo waray si la ii qabtay iyo goor la qabtayna ma garanayo xaalado adag baana soo maray sidii la ii sheegay heer haataa waxaa la gaaray in la yiraa oo cawo idil aan meesha kooma kula jiro 2 saac habeenimo lay qabtay ilaa 2 saac oo subaxnimo aan ka gaaro intaas bixitaan ma jirin markii dambe waa la isoo waray xoogaa la igu soo waray haddana heerkaana marahaya alxamdulilah intii noo dadaashay ilaahay ha guuleeyo gargaarka adduun ilaah ku guuleeyo haddana heer waxaan marahayaa gurigii in la ii ogolaado la ii fasaxo aan joogi karo aan socon karo aan alxamdulilah cunto qaadan karo aan wax garan karo alxamdulilah ilaahan ku xamdiye ilaahay baa mahad u sugnaata haddii aan la kulmo saanoo kalaa waxaan kula talin lahaa alxamdulilah hadiidina daawada doonta gargaarka doonta ilaahay hadiidina waa kula talin lahaa waa kula boorin lahaa alxamdulilah weligiin u hormaraan dhihi lahaa qofkii la kulmo u hormar